bismillaahi raxmaani raxiim halkan waa xanta wararka kuu soo dhawaada warar warbixino iyo dhacdooyin aanu falanqeyn ku sameynayno waxyaabaha aanu falanqeyntan ku sameyn doono sidoo kalena aanu idinkugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal xiriirka Soomaaliya iyo Qatar caqabadaha iyo rajada mustaqbalkan waxaan soo gudbin doonaa xog waran dhacdooyin aanu ku falanqeyn doono barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono isu soo dhawaanshiyaha Tamim bin Hamad Al Thani oo ah boqorka dalkaasi Qatar iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan soo gudbin doonaa isu soo dhawaanshihii hore ee Fahad iyo Farmaajo ka gadaal markii meesha ka baxeen madmadowgii dhacay miyaa la xaliyay waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaan intaan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono adduun weyn raali ka noqdo sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan ugu xiranow waxa ka mid noqon doona oo aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa adduun weyn raali ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal xogo iyo dhacdooyin ku gadaaman Somaliland iyo booliiskooda oo deedeeya koox dil u geysatay ama dil ka geysatay Laascanood waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdooyinta ku gadaaman xilli Laascanood ay tahay magaalo kulsi horeysa laga soo raafay dadyow ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya sababo la xiriira dilalku weli dilalku waa ay socdaan xaalkuna ma uusan isbedelin halkii ay wax ka qasan tahay haddaba waxaan soo gudbin doonaa warbixino iyo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan ee soo dhawaada oo ku biira daawadayaal saaxiibayaal xiriirka Soomaaliya iyo Qatar caqabadaha iyo rajada mustaqbalka ayaanu eegaynaa oo ku bilaabi doonaa fadlan la garay qaybta hoosana arahdada noogu dhaaf daawade maalin kadib kulankii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa Dr. Abdullah Salim Nasir Al Holi Al Nuwami loo magacaabay danjiraha dalka Qatar u fadhiya Soomaaliya magacaabida waxaa xiise u yeelaya in safiirkii hore Xasan Xamza Asad Hashim oo hayay xafiiska tan iyo Abriil 21 2018 uu aad ugu dhawaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyihiisii amniga iyo sidoo kale agaasinkii awoodda badnaa ee ka soo arimay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xilhantii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iminka Qatar ayaa matalaad hoose ku haysay xiriirkeeda Soomaaliya balse muddo xilhantii Farmaajo ayaa xiriirkiisu ku rogay mid iskaashi hamil leh oo markaasi sii kobcay wixii ka dambeeyay anqilaafkii Khaliijka Carbeed oo ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay mowqif dhexdhexaad ah danjiraha oo galaanka lixaad leh ku lahaa nabad iyo nolol ayaa markaasi ka ildamuuqsaday afgambigii muddo kordhinta Abriil 2021 oo hoostiisa lagu qorsheeyay siyaasiyiin badan oo waqtigaasi mucaarid ahaa ayaa qaladka danjiraha u arka mid dooxa ku lug lahayd walow Muqdisho markaasi loo soo diray Dr. Mudlaq bin Majid Al Qahtani oo door wacan ka qaatay xal u raadinta doorashadii murugsaneed iyadoo raacaysa aragtida dib u soo kabashada qaranka ayay ku deeqday dalka maalgelin dhan 200 milyan oo dollar oo lagu dhisay wadooyinka isku xira suuqyada caasimadda Muqdisho iyo goobaha wax soo saarka ee magaalooyinka Afgooye iyo Jowhar Qatar oo aan dadaal hagran ayaa Soomaaliya ka taageerta dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin maareynta xaaladaha degdega ah iyo musiibadaha isku beddelka diblomaasiyiinta ayaa muujinaya in xiriirka Dooxa iyo Muqdisho uu ka weyn yahay shakhsi xilli siyaasiyiinta UPD ay ku kala aragti duwan yihiin iskaashiga Dooxa xiriirka maalgashiga dhaqaalaha ayaa sii kordhay kadib markii Qatar Airways ay bilowdo duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho Dooxa ayaana ballan qaaday inay maalgashato dekedda Hobyo oo muhiim u ah soo gelidda suuqyada Afrika
Qatar waxay taageero deeqsinimo leh ka geysataa casriyeynta ciidamada amniga iyadoo dalka ku deeqday 68 gaadiid dagaal oo casri ah. Maalgeliskana waxay sidoo kale maalgelisaa askarta uu Turkigu u tababaro la dagaalanka argagixisada iyada oo markaasi dhinacyo badan ka taageerta walow arrintaasi uu bidhaamiyay Turkiga xilli uu baahinayay dukumeenti ku saabsan ciidanka isbaarta tababarka ku qaata, taasi oo ahayd xogo iyo dhacdooyin uu bidhaamiyay dalkaasi Turkiga. Ergeyga u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa 2021 soo bandhigtay in waan u socoto iyaga iyo Al-Shabaab. Dooxa waxay leedahay waayo aragnimo badan oo Soomaaliya ugu yaboohi karto. Waxay dalka ka unkumatay macahad lagu carbiyo diblomaasiyiinta iyadoo ku lug lahayd xal u raadinta khilaafkii dhex yeelay Muqdisho iyo Nairobi. Inkastoo aan lagu guuleysanin arrinka wanaajinta xiriirka Muqdisho iyo Dooxa, wuxuu guud ahaan dabada ku wataa xiriirka dowladaha markaasi iskaashiga khaliijka oo markaasi badidoodaba Soomaaliya ka faa'iideysan karto iyadoo laga digtoonaanayo waxyaabaha dhaawici kara iskaashiga faa'iidada wadaagga ah. Waxaa habboon in cilaaqaadka dalalkaasi lagu sameeyo dib u habeen la jaanqaada danahayaga iyo qiyamkayaga si loo abuuro jawi iskaashi halka dalku ku milmi lahaa xifiltankooda siyaasadeed. Dowladdii Farmaajo aan saameyn daraasad cilmiyeysan oo saadaalin karay cawaaqibta ka dhalan karta xurgufta dhex tiilay dowladaha khaliijka ayaa waxay markaasi noqdeen kuwo dhidabatalay dad waa bad ay markaasi ku sababin karin, waxayna la kulantay colaadii ciqaab dib u dhigay soo kabashadii. Dowladda uu hogaamiyo Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxay markaasi haysataa fursad ay ku soo celin karto xiriirka taariikhiga ah ee markaasi saldanada Cumaan iyo Kuwait oo xasaasiyadooda ka yar tahay midda Riyaad iyo Abu Dhabi. Xasan Sheekh oo khibrad u leh xiriirka Soomaaliya iyo Qatar waxaa suuragal u ah hab niyad wanaag ku jiro inuu dib uga hagaajiyo xiriirka si uu u gaaro heer cusub, siday leeyihiin dadka iyagoo arrimaha ammaanka yaqaana ama falanqeeya iyo markaasi xiriirada caalamiga ahba. Waxaanu eegi doonaa markan saraakiisha ugu sareysa ciidamada Somaliland ayaa waxay markaasi noqdeen kuwo iyagu baadigoob ugu jira xubno iyagu dilal ka geystay maamulkaasi Somaliland, kuwaasi oo iyagu noqday kuwo magaaladaasi Laascaanood dil ka geysta, taasi oo noqotay mid kol sii horeysay sababtay raafka dadyo rayid ahaa, kuwaasi oo iyagu lagu raafay gudaha magaaladaasi Laascaanood si kasta oo ay xaaladda noqoto. Dabley hubeysan ayaa ka geysatay magaaladaasi dil, taasi oo markaasi baadigoob ugu jiraan laamaha ammaanku. Dableydan ayaa la sheegay inay markaasi dil u geysteen muwaadin lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Malay, kaasi oo dhalinyarada Laascaanood ka tirsanaa, xilli rasaas ay ku fureen koox aan la garan oo hubeysan. Somaliland ayaa kol sii horeysay kooxa aan la garaysan ee dilal ka geysta aawadood waxay raaf ballaaran u geysatay dadyoga ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, iyada oo laga soo raray ganacsato qoysas kala irdhoobay sida aabbo iyo markaasi caruurtiisa ama hooyo iyo caruurteeda ama marwo iyo saygeeda. Si kasta oo xaaladda noqoto, weli lama oga sababta rasmiga ah ee loo dilay marxuumkan iyo dilalkii ka dambeeyay ee dhacay. Sidoo kale Somaliland ayaana markaasi iminka la sheegayaa in saraakiil kala duwan oo baaris ah iyo booliis ay ku soo daadisay magaaladaasi si markaasi howlgallo ballaaran ay ugu sameyso. Dadka deegaanka ayaa la sheegayaa inay isweydiinayaan sababta Laascaanood ku kala yeeshay waxyeelada ammaan darida ah ka dhaca inta badan kuwaas oo lagu dilo siyaasiyiintooda, dhalinyaradooda iyo cuqaashooda, taasi oo ay markaasi siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka deegaanku kol sii horeysay dhaleeceen ugu jeediyeen taliska uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, kuwaasi oo ay markaasi eedan ugu jeediyeen in arrimo siyaasadeed ay ka leeyihiin ammaan darida ka jirta Somaliland. halkan waa xanta wararka, waxaan dhaafnaa sida iyo ammaano Allah. Fadlan ku biir ka mid noqo daawadayaasha nagu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibada warar warbixino iyo dhacdooyin daawade saaxiib. Nabaddiin ayaan hawada idin kale nahay daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska nagu xiranow.